dugsiyada al-irshaad schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلى عبد الرشيد حيسدني سينسكا سكولة الإرشاد program online program marka fasalkan waa fasalkii shanaad soo dhawaada ardayday waan soo dhaweynay idinkii waalidiinta waxaan rajaynayaa inaad xiisada si fiican ula socon doontaan waxaynu ku guda jirnay casharkeennii heat transfer through liquids gudbida uu ka dhex marayo ama uu kulaylku ka dhex gudbayo dareerayaasha waxaynu soo qaadanay activity aynu ku muujinay qaabka uu kulaylku u dhex mareero dareeraha activity labaad ama waxqabad labaad baynu maanta qaadananaa waxqabadkeena labaad arday wuxuu yahay repeat the previous experiment waxaad ku celisaa experimentkii aad hore u samaysay but this time xilligani play some flow waxaad ku dhigaysaa waxoogaa daqiiqa or tea leaves ama caleensha at the bottom sagxadda of the bottle jar dhalada aynu waxa weeye activity-ga ku samaynayno kadibna biyaad ku shubi heat kadibna kulaylida jar dhalada gently and observe una fiirso what happens waxa ku dhaca ardayay to the particles waxa weeyaan particleski ama saxarooyinkii ay ka koobnayd of the floor daqiiqdu walxiya daqiiqda ka koobnayd ama wet tea leaves ama caleentii shaahay qoyde as the water markay biyuhu get is hot kululaadaan marka su'aalahan aynu ardayda ka jawaabanaa kulkaynu activity-ga samayno su'aasha koowaad aan ka jawaabanaa waxa weeye how does the heat sidee kulaylku at the bottom sagxadda of the water joogay sagxadda waxa weeyaan dhalada reach uu ku gaadhayaa at the top of the water biyaha xaggiisa sare seebuu kulaylku ku gaadhay su'aasheena labaad aynu isweydiinayno intaynu activity-ga ku guda jirnaa waxa weeye ardayay what makes maxaa ka dhigay the floor particles walxihii daqiiqdu ka samaysnayd ama wet tea leaves ama caleentii shaahu to move inay dhaqaaqaan oo ka soo dhaqaaqaan from the bottom sagxadda to the top xagga ugu sarreysa ay tagaan of the water ee biyaha marka labadaas su'aalood kolkaynu activity-ga samayno ayaynu ka jawaabanaa activity-ga waxay ku fiican tahay inaynu wada samayno laakiin sadee isma joognay imika ardayda qof walba halkiisu ku isku dayi doonaay observation-ka kolkaad activity-ga samayso bal waxa soo baxaynu isla eegno the floor particles walxii daqiiqdu ka samaysnayd ama tea leaves ama caleentii shaahu come at the surface waxay yimaadaan dusha sare of the water biyaha after the water kadib marka biyaha is boiling la kulayliyo this is because tani sababtu waxa weeye the water biyuhu at the bottom ee sagxadda of the jar dhalada ayaa becomes noqonaya hot and less dense biyaha sagxaddu ee waxa weeyaan dhalada xagga ugu hooseysa wixiga waxa weeyaan biyaha intooda kale way kululaanayaan kadibna cufnaantooda hoos u dhacaysa ardayay and move upward kol hadday fududaadaana sare u soo dhaqaaqayaan biyahaasi with the floor particles iyagoo soo raacayaan particleski daqiiqda ama wet tea leaves ama caleentii shaahu iyagoo kor u soo raacayso marka biyihii kolkay kululaadaan biyaha sagxadda ugu xiga ayaa kor kululaanaya way fududaanayaan kolkay fududaadaanna arday waxay samaynayaan inay kor u kacaan halkoogiina waxaa soo gelaya biyihii dushee qaboobaa dhaqaaqaasi wuxuu keenayaa in daqiiqdii iyo shaahii sagxadda joogana ay kor u kacaan ay raacaan biyihii fududaaday ee kor u kacay marka heatku arday activity-yada aynu samaynay su'aasha ugu muhiimsan ka jawaabana waa tanoo seebuu kulaylku ku dhex maraa dareerayaashaynu ka jawaabanay marka waxaynu odhanaa heat moves kulaylku wuxuu dhex maraa through water I mean liquid waniga bracketka idin geliya dareeraho dhan weeyaane habka la yiraahdo convection oo macnihiisu yahay islaba rog habka uu kulaylku uu ku dhex maro dareerayaasha waa convection halka waniga hoos idinka calaamadiyay convection baynu odhanaynaa habka la yiraahdo islaba roga dhaqaaqa biyuhu ay dhaqaaqayaan ee ay kulaylka gaarsiinayaan xagga sare biyihiisa xaddu joogay the current is
qulqulka daadkaasoo spread faafinaya the heat kulaylkii sagxadda joogay are named waxa loogu yeedhaa convectional currents waxa weeyaan convectional currents qulqulkii biyaha islaba rogaya macnaha biyihii sagxadda jooga kolka fududaadaan dushay istagayaan iyagoo kulaylkiina sita halkoogina waxaa gelaya biyo qabow kuwaasina kadibna iyaguna way kululaanayaan sare u kacayaan marka hot water biyaha kululi slighter way ka fudud yihiin than cold water biyaha qabow than cold water biyaha qabow way ka fudud yihiin hence sidaa darteed it rises up biyihii fududaadee sare u kacayaan from the bottom iyagoo xagga gunta ka tegaya of the container halkii ay ku jireen and cold water biyihii qabowba ee dusha sare joogayna goes down xagga hoose ayay ardayay imanayaan marka laba activity baynu soo qaadanay tan iyo tii ka horreysaba kolkaynu soo khulaasayno waxaynu ku baranay qaabka uu kulaylku ku dhex maro dareeraha waxaynu odhanaynaa waa convection method convection method ayuu kulaylku ku dhex maraa dareeraha kulaylka qaabka ugu baaho waxa weeyaan dareeraha oo dhanna waxaan odhanaa convectional currents waxa weeyaan biyaha dhaqaaqaya baahinaya kulaylka convectional currents baynu odhanaa marka cashirkeena waxaanu leenahay intaynu uga dan lahayn waa qaabku kulaylku ku dhex maro dareeraha waa habka loo yaqaano convection ayaynu odhanaa marka haddii baydma arday maanta halkaa baynu ku joojin doonaa xiisadeena waxaanu su'aashan iyadana waad isku soo dayi doontaan inkastoo hal su'aal ay tahay waxaan rajaynayaa inaad casharka fahanteen su'aashana waad ka soo jawaabi doontaan su'aashu waxay odhanaysaa dash is the method of heat transfer waa habka kulaylku ku dhex maro through liquids dareeraha habka kulaylku ku dhex maro dareeraha ayaa halkaas waxa lagu buuxinaya lagu qeexaya marka xiisada maanta halkaa waynu ardayda ku soo ururinanaa aad baad u mahadsantihiin sida fiican aad u dhagaysateen inaad fahanteena waan rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dugsiyada al irshaad schools